kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii kulan gaara وهجاك تطبات كان يو برنامج كنا وحنوجو مرتيا محمد عبد علي بولاله وصحميها وساردة جناسجة ورشدها إيو دلحيسكا كارهاب برنامج كيجن وحنو كجهة الدولار دلحيسكا إيو كالنتا أي كقالته لنا دقالها استقبل برنامج هراء أو لنا سهمين تانا أنو كقالنا وهجاك بروح موضوع وحنتا دلحيسكا دلكن كالنتا وكقالته بالسيابة بدل مركينو وجهرين دلحيسكو محيي بسم الله الرحمن الرحيم فيصل فالفردوان كسلام ولا لا دي راديو هرجيس بقى وحوي أول دلحيسكو وورشد عن قيق الحين سيدا أو مدحوينه باشيء ما نكتي دوي الحمد لله وانو فهمي مدحوينه إن دلحيسكو يهي ورشد عن الحين قيق مركا إنه نور دلحيس واقف أما قوب وجعليستي أما ودن وجعليستي ربائنه كل نقضه دلحيس horta kelmadu wasaas waa meel xiisaysay wahagaag dalkeena bal hada rabigay dabeecad cajiib ayuu ku manaystay iyo goobo dalxiis oo xiisalo bad iyo bari iyo dhinac walba bal hada nooga warram iyo goobo taariikhi ah oo kullooda lagu soo waxa weeyaan qubaal dalxiiska wadankeenu iyadoo oo aan maanta Soomaaliland la aqoonsan hay'adda adduunka dalxiiska u qaabilsani 2010 waxay u aqoonsatay inuu wadan dalxiis yahay waayo dalxiisayaashii halka yimi ayuun baa dee warka geeyay baan u malaynayaa waxa weeyaan Somaliland waxay leedahay bad aad u dheer oo ilaa 800 iyo googo ah oo xeebtaasi wada nadiif tahay waxa kale uu leeyahay Faysalow buuro iyaguna laynka labaad noqonaya marka gubanka laga yimaado oo iyaguna ilaa daba iyo dacal oo buurahaasina ay yihiin buuro aad u qurux badan oo green ah waxa uu leeyahay aasaar 6 gobol ee dalka ku fiirsan oo isugu jirta dhowr qaybood oo kala duwan oo dad qurmo hore inooga tageen iyo magaalooyin iyo xabaalo waxa aynu leenahay cadceed 12 saacadood oo aan qofka dalxiisaha xidhaynin waxa aynu maanta leenahay hudheelo aad u waaweyn oo lagu soo hiran karo run ahaan marka la eego dalxiiska oo badda iyo berigaba ka furan iyo magaalooyinka waaweyn waxa aynu leenahay xoolo iyo dhaqan gaar inoo ah oo aad u qurux badan oo ay dalxiisayaashu aad u xiiseeyaan waxa inta dheer beerihii iyo badaha guntoodii kalluunkii marayay iyo ugaadhii waxa kale oo intaa waliba sii dheer hawada iyo jawiga aadka u quruxda badan iyo dabeecadda Ilaahay dhulkeena uu sameeyay nin khabiir ahaa oo dalxiisayaasha waaweyn ee Sweden soo kaxayn jiray halkii lagu yeeran jiray wuxuu yiri wadanka la yiraahdo Namibia iyo wadanka Soomaaliland la yiraahdo waa laba wadan oo aad moodo in dhagax la isugu bedelay ama la sidii laba wadan oo mataana ah oo labada qof ee mataanaysa isugu eegyihiin nasiib wanaag ilaa intii anigu aan ka shaqeynayo wasaaradda dalxiisayaashu way soo daba socdeenuun waxa weeyaan maalin walbana way soo kordhaan hudheeladii iyo intay tansiilaadkii u shaqeynayeen way soo kordhaan dadkeenii Soomaaliland laftoodii ayaa dalxiiskii bartay oo iminka u baxa meelo badan oo bisha 8 dhalinyaro yar oo jaamacadda Hargeysa ku jirta ayaan ka xaynaya oo geynaya goobo kamid ah goobaha dalxiis markay sidaa tahay waa warshada aan qiiqa lahayn oo waxay naga soo galaysaa lacag aad u fara badan Masar oo leh kinaal Suez iyo webiga Niil iyo dee goobta ay ku taliyeen baxnimadeeda lacagta dalxiiska ka soo gasha dhaqaalahooda marka la kala baro oo bad wuxuu ka soo galaa dalxiiska way u weersamaysteen haddii aynu inana u weersamaysano waxaynu ka heli doonaa hanti aad u fara badan oo in runtii dhaqaalaheena kabta oo dadweynuhu calaa qof ilaa istaansa tamaandhada iibisa ilaa hudheelka u sareeya ilaa dayuuradaha ilaa baabuurta ilaa shacabka wahagaag waxaad ka warantaa bal hadaynu soo qaadano dhinaca goobaha berigii hore goobo gaara un baa jirtay imika xilligan oo kale xilli roobaada oo gug wanaagsan u daayo dhulku ilaa hadda uu efagari yahay balbuurti gacalibaax iyo daala iyo eeriyadaasi dalxiiskooda maxaad u malinaysaa xilligan waxa weeyaan runtii dee quruxdii bay quruxi ku sii siyaaday goobahaasi waxa weeyaan waa Highland
waa goobo uu inoo sameeyey dalkii ingiriisku sida daale iyo gacan libaax oo kale iyo sacaadadiin oo kale waxa weeyaan mar walba waa green oo waa dhul aad u qurux badan oo aan mar qura isagu gu iyo jiilaal aad moodo in dhulkana roogoglan yahay dhirteeduna aanay imanka uu roob ka qaaday markay sidaa tahay waxa waantaa weliba gacan libaax iyo daalaba ah meelo loo seexan karo oo iyadoo hudheeladii hore burburan haddana guryo cusub ayaa laga sameeyey oo lagu talagalay in lagu dalxiiso oo la digo marka waxa weeyaan waxaa ku soo kordhay calmadow oo dee ka shishiishaysa daalo iyo buurta wagan iyo marso iyo dee dhul badan oo caynkaas ah ayaa inagu soo kordhay oo iyaguna aad u qurux badan runtii dhul dihinaa ahaa waxa weeyaan dalxiiska dalkeenu walaalo faysal hagaag dhinaca dhirta markaynu ka eegno bal goobahaas oo kale dhirta ee la yaab kale ee waad maraysay ee matalan aad xusi karto ee aan goobaha kale aan ku oolin maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah geedka dayibka la yidhahdo wuxuu ka baxaa buuraha aan kuu sheegayo geedka wegarka la yidhaahdo wuxuu ka baxaa goobaha aan kuu sheegayo dhirta laamalowshaha la yidhaahdo oo dhan ee dhuudhuban ee quruxda badan waxay ka baxdaa goobaha aan kuu sheegayo geedka naaga uraha la yidhaahdo ee sida cadarka u soo uray ubaxa badan bixiya wuxuu ka baxaa goobahaas oo kale kumanaan geed oo adduunka ka dabar go-ay siduu nin khabiiraho hore nuugu yimo faransiis ahaa sheegay ayaa goobaheena ka baxa oo dhirtaa ka mid ah salalmacdi oo dhowr noocaba ka baxda geedkii maqaarida la odhan jiray maska iyo abeesada ayaa lagula dagaalamaa ayaa ka baxa waxaa iyo wax ka sii badan faysalow ayaa ka mid a meydigii iyo fooxii oo runtii kaalin aada u muhiima xagga dhaqaalahana kaga jira oo caalamka aan dee ka wada bixin oo ilaahay mana inoo siiyey ayaa ka baxa oo dee quruumihii hore ay isticmaali jireen aasaartii berigii hore goob dee green ahaan loo tagaabay ahayd maanta saddexdaa meelood aan kuu sheegayaba goobihii aasaarta iyo raadadkii dadkii hore kaga tageen ayaanu iyagana ka helnay taasina waa guul iyo qurux kusoo korodhay marka waa hagaag dhinaca banaanada haddaad eegto iyo dhinaca matalan duurjoogta goobaha qullooda laga helo waxa weeyaan banaanada dee baranka dalkeena ugu waaweyn saraare waa ka mid goobaare waa ka mid geriyaado waa ka mid tuuyo waa ka mid banka wajaalo waa ka mid arooriyo waa ka mid bancawl waa ka mid saramaayo waa ka mid nugaal oo dhan waa ka mid dhulkaas oo dhan waa dhul aada u banaan marka waxa weeyaan waxaa kaloo ka mid a intoy bankan intoy gumburaha waxaa ka mid a dee adigu intaad ila garan karto oo wada banaana banaanadaas oo dhan waxaa joogta ugaadhi oo runtii cawsha oo qudhaba iminka geriyaad ku hadhay laakiin ugaadha inteedii kale way ku dhan tahay oo macalgoryadu way soo noqotay marka ay saa tahay xooliina way dhex daaqayaan waxaad moodaa jawigan iyo barwaaqada iminka aynu sanadkan ugaadh aada u badan intii iminka aan alarkay ay soo noqotay oo in marka hore inaga yaro tagtay gerigii un baa soo noqonaya maroodigii laakiin ugaadha inteedii kale way soo noqnoqotay waxa weeyaan in la ilaaliyo oo dadku aanay dhibaataynin waa loo baahan yahay dadka dalxiiska ahi dee ninba waxbuu xiisaynaya nin baa shimbiraha xiisaynaya oo quroo shimbiraha dabagelaya mid baa masaska eryanaya mid baa dabaashi waa hagaag shimbiraha oo dad badan ay xiiseeyaan laakiin dadkeenu aanay aqoonin bal shimbiraha dalkeenu maxay caan ku yihiin maxaase intii aad la socotay dalxiisayaasha waxa weeyaan shimbiraha dalkeena ku caanta ah shimbiro waa shimbiro deegaana oo aan dee dalka ka tegin shimbirana waa shimbiro guuro oo dee wadamo kale inooga yimaada waxa weeyaan shimbiraha deegaanka ah ee dalkeena jooga dee digirinkii baa ka mid ah oo dhowr nooc ah waxaa ka mid ah shimbirtii yaryarada la odhan jiray dahabadii baa ka mid ah quduquutadii baa ka mid ah galaydhkii baa ka mid a gorgorkii baa ka mid a coomaandihii baa ka mid a shimbiro aada u qurux badan oo fara badan ayaa dee runtii ka mid ah oo aanan tiradooda aanan maanta dee koobi karin shimbiraha dad baa xiiseeya oo iyaguba u yimaada cidooda iyo dhawaaqooda dhulka buuralayda ana aad bay ugu badan yihiin baddana kadaalik shimbiro aada u qurux badan ayaa iyagana ka buuxa baddeen waxaa tiri waa bad aada u dheer oo dalxiiska ku haboono weliba meelo fara badan waana wasaaraddiinin iyo hawlo badan oo ka qabateen bal hadda nooga waran haddada aan kula hadlayo agaasimihii dalxiisku xalay wuxuu marayay meesha la in afadoobe isagoo daala ka soo noqday wasaaraddu waxay ku bixisay qarash in wacyigelin laga soo sameeyo iyo dhiirigelin filim laga sameeyo oo ay qandaraas ku bixisay marka agaasimihii baa wax ahaan naga raacay annaga waxa weeyaan xayt halkaas u soo socday waayo kaalinta ka waran markaa kaalintaasi wasaaraddu aad bay ugu mahadsantahay waxa weeyaan kaalinta marka dadkii laga wacyigeliyo inay dadkii dalxiisayaasha ahaa nabadgeliyaan oo ay waddankoodii dhowrtaan oo ay soo dhoweeyaan waxa weeyaan dee wax ku ool baynu noqonaysaa oo waa tallaabo koobaad aynu qaadnay waxaa intaa dheer oo wasaaradda aan runtii aada uga codsan lahaa labadii sharci kii dalxiiska iyo kii aasaartuba waa diyaar in la dadadgeliyo oo golaha baarlamanka la horgeeyo golaha wasiirada oo la ansixiyo
waqtigeeda waa la geyn doonaa insha allahu bal waxaad nooga warrantaa qulleeda goobahan aasaarta oo in badan aad ku jirtay barnaamijyo badan aan ka soo qaadanay bal hadda qiimahooda goobo badan oo matalan laaskel iyo meelo kale waxa weeyaan waxaynu nahay waddankeena lagu tilmaamaa meelihii bini aadamku ka dhaqaaqay ama kuwa tarmay ama ku taabaqaaday ayaa waddankeena lagu tilmaamay ee aan weligeedba laga guurin laakiin dadkeenu waxay iska moodaan meel saxaara ahoo aan waxba oolin meeshu markay caynkaa tahay dee laasgaal baa imika iyo dhagax kuure iyo meelo aan badnayn baa inoo calaamadsan oo aynu dee bini aadamka geygeynaa tansiilaadkiiba inta kale waa alfaysal oo weli ka maqan oo dee in suuliyadii iyo guryihii inkastoo imika laba goobood oo goobina tahay boon oo cabasa la yidhaahdo iyo dhagax kuure aanu guryihii iyo berkadihii iyo waddooyinkiiba ka samaynay haddana waxa weeyaan faan noola fari kama qodna marka tansiilaadka la sameeyo dadku wuu tegaya oo dee way tegayaan goobahaasi waxa ay soo jeedaan dalxiiska anigu markaan run ahaan kaxiyo dadka ajaanibka ah ee ama rog artiska geeya ama meelaha magaalooyinka ah ee dunsane laga guuray ama dee baaba-ay boqolaal sano ama kumanaan sano ka hor dadku aragti iyo fikrad aada u sarreysa ayay waddankeena ka qaataan oo ay ogaadeen inuu yahay waddan taariikheed oo soo jireen taasina waxay inoo soo jeedi doontaa boqolaal kun oo dalxiisayaalah marka aynu inaguna sideeda uga shaqayno ee la nimaadno juhdigeeda hagaaga aada iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa weeye maxamed cabdi cali bulaale waa sahamiyaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo ka mida ragga had iyo jeer barnaamijyadan dhinaca horumarka iyo dhiirigelinta dalxiiskayna ka qayb qaata anagoo filayna inaanu barnaamijyo badan ka samayn doonno dhinaca dalxiiska warshadaha iyo ganacsigaba aada iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal intaasi waxa aanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii kulan gaar ah tan iyo intaani isugu iman doono barnaamijyo sidaas oo kalea sidaas iyo nabadgelyo